بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waxaan rabaa inaan kasoo gudbiyo casharka ku saabsan saliidda malmalka. saliidda malmalka yani micnaha malmalka wuxuu yahay iyo saliidiisa waxtarkeeda iyo wixii maaragtay ku saabsan insha Allah. bismillah, horta malmalka waxaan ka warqabnaa inuu yahay wax waa hore la isticmaali jiray, dadkii hore isticmaali jireen, sida uga soo hadlay beeyada oo kale ama luubaanta. markaan ka hadlayay malmalka iyo luubaanta ama malmalka iyo beeyada mar walba waa la dhinac wadaa, lama kala reebo sababtoo ah waa labo yani isku si loo isticmaali jiray taariikh ahaan, aadna isaga agdhow waxtarkooda, haddana isla markaas يعني markay noqoto iibin iyo suuqa way isla socdaan, mar walba lama kala reebo. markay noqoto in maaragtay baaritaan cilmi baaris lagu sameeyo waa la isla wada yani mar walba. xataa waxa jirto dadkii daawooyinka ka soo saaray oo daawooyin hadda ka sameeyay yani waxay isku dhex daraan labadooda, way isku daraan marka noqoto waxtarkooda markay isku jiraan ay si maaragtay muhiim yani ay si waxtarkooda uu si xoog badan yahay. marka waxaan malmalka la yiraahdo waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya uu garan karo micnaha sida uu jirka oo la shaqeeyo, laakiin markii cilmi baaris xoog lagu sameeyay waxa laga helay waxyaabo badan oo chemicalka laba u kala baxa, midna waa dabiici, midna waa midaan dabiici ahayn oo يعني بني آدم gacantooda ay ku sameeyeen. marka English waxa la yiraahdaa synthetic iyo waxa la yiraahdaa natural ayaa la kala yiraahdaa. natural wixii dabiiciga, syntheticna waa waxa bini aadamka ay sameeyeen. marka maadaama ay waxa bini aadamka gacantooda ku sameeyeen inta badan waxa lagu arkay dhibaatooyin inay leeyihiin. marka waxaan rabaa inaan iraahdo malmalka wax weyn aad wuxuu ugu dhow yahay waxa la yiraahdo luubaanta. marka taariikh ahaan kulay waa ka wada warqabnaa, inkastoo dad ay si gaar aad uga sii hadleen. waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay oo waalidiinteeni hore, dadkeeni hore isticmaali jireen, sidaas oo kale adduunka oo dhan uu nala yaqaano. oo taariikhda Soomaaliya waxyaabaha hadday Soomaaliya maanta caan ku tahay, waxyaabaha caanka ay ku tahay waa malmalkaas dhoofintiisa iyo luubaanta dhoofinteeda, iyo in wadanka loogu yimaado in laga gato intaasba. marka alxamdulillah waa nicmo Ilaahay wadankeena uu siiyay, laakiin dadkiisa aad uga warqabin ama uga faa'iideysan. dadkii hore yani 200 sano ka hor Soomaaliya intuu isticmaalka imaanin aad baa looga faa'iideysan jiray, wuxuuna ahaa wax maaragtay laga warqabo waxtarkiisa iyo faa'iidadiisa. waxyaabaha hadda aadka looga hadlo dadka waxaa ka mid ah waxay yiraahdaan malmalka iyo luubaanta Soomaaliya marka laga gadanayo dahab baa loo keeni jiray. Soomaaliya dahab baa loo keeni jiray si looga bedesho, ilaan waagii hore wax trade la dhaha jiray, waayadan dambe ayaa lacag iyo waxaas la bilaabay. laakiin waxa jiri jiray la dhaho trade-ka waa labadii shay ayaa la kala bedelanaya. saasoo hadda business-ka xataa wuxuu yahay waxa la yiraahdaa trade. marka hadda lacag iyo xaashi xaasiita bilowday. almuhim trade-kaas wuxuu ahaa Soomaaliya waxaa looga bedelan jiray dahab ayaa labadooda looga bedelan jiray. marka saas ayuu qaali u ahaa, yani wax alla waxay dadkii gadan jiray ay ku bedelan lahaayeenba waxay ahayd waxa ugu qaalisan wadankooda laga helo ayay ku bedelan jireen. mar walba waxay ku bedelan jireen waxa ugu qaalisan oo wadankooda laga helo. marka saas darteed yani wax wuxuu ahaa qiimahiisa aad maaragtay u sareeyo. almuhim taariikh ahaan waxaa laga hadlayaa waa 5,000 sano ka hor, 10,000 sano ka hor waxaa la gaarsiinayaa qowm caad, inkastoo wax dhan wadankeena ka wada agdhawaayeen waagii hore. يعني dadkii
ama hal yiraahdo reer caad ama hal yiraahdo maaragtay faraacintii wixii dadkii hore oo ahaa lagu yaqaanay xoogga maaragtay sida hadda super powerka la yiraahdo ama America la dhaho maanta ama Ruushka la dhaho ama wixii lamid ah la dhaho dadkaas ayay ahaayeen dadkii wadanka aad u imaan jiray oo ka gadan jiray marka taas waxa halkaas laga fahmayaa in uu qiimaha waxaan ay leeyihiin inuu aad u weynaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala يعني أنا سيجار ونوسي مركز تاريخ أهان وحليل هذا dadkii qowmiyadihii hore oo xoog lahaa oo dhan way imaan jireen Soomaaliya inkastoo Soomaaliya xataa lagu tirinayay dadkii xoog lahaa oo markaas maaragtay ahaa dadkii adduunka meelo badan waxyaabo badan ka sameeyay oo taariikhda Soomaaliya yani dadka hadda Soomaaliya sida ay tahay kaliya wax ku qiyaasaan laakiin intaas sheekada waa ka weyn tahay marka Soomaaliya taariikh ahaan yani anoo hadda dhinacaas galaynin waxay ahayd dadkii waagii hore aad maaragtay looga heebeysan jiray ama maaragtay wax laga qaadan jiray ama business loogu imaan jiray ama maaragtay adduunkaas maanta xooga adduunka meel weyn bay kaga jirtay marka waagaas dadkii trade-ka ku jiray Soomaaliya hadeen ahayn qof dadkii ugu sareeyay waxay ahayd dadka ugu sareeyay la tartamaysay يعني هلكا دا تاريخ قفكي فيريا wuxuu arki karaa Soomaaliya inay ahayd meel yani wax walba looga heebeysto ama maaragtay business ha noqoto ay ugu horeeyaan wax soo saar ha noqoto xagga birta nooc walba badda saan ma ahayn Soomaaliya sida hadda ay dadka arkayaan marka waagaas marka waxyaabaha caanka ay ku ahayd ilaa China ilaa Greega dhinacaas Yurub kor مصر يعني مeel baa looga imaan jiray kaliya in maaragtay Soomaaliya laga qaato waxyaabahan sababta marka looga qaadanayo maxay ahayd yani ma wax inta la iska qaato guriyaha la isaga shiday ma macnaheedu waxa hadda ka hadlayno waa daawada ku jirta waxan yani adduunka waa waxyaabaha ugu qaalisan waxa kamid ah daawada sababta wax kasta uu qofka sameeyo hadii uu si kasta qofka maaragtay guul kasta u gaar ama lacag kasta u helo marka ugu dambaysa hadii uu ahayn qof caafimaad maaragtay leh ama caafimaadkiisu taam yahay waxba kuma raaxaysan kara haduu lacag haystay haduu magac haystay haduu power haystay wax walba waxba kuma maaragtay kuma sameynayso yani haduu qofka caafimaadkiisa oo dib u jiro ama xanuunsan yahay marka saas darteed waxa aad maaragtay loo raadin jiray daawada runta ah oo meel walba maaragtay dad walba dhaqankooda waxa ku jira daawo Ilaahay wuxuu ugu talgalay dad walba meesha degan yihiin daawadooda ayaa taalo dhirta guryahooda gadaasheeda ka baxo baadiyahooda ka baxdo ayaa daawo ah laakiin markay gaarto xooga xanuunka aad u sareeyo dabcan wuxuu u baahnaanayaa xabkahan oo kale xabkahan marka kaliya inay dadkeen ka warqabin micnaheedu ma aha yani inaan maaragtay faa'iidadooda aan la ogeyn dad badan ayaa ka warqaba faa'iidadooda waxaan ugu horeey aan dhihi karaa yani ama malmalka ha ahaado ama ha ahaato lubaanta ama ha ahaado hadiga ama ha ahaado xagarka waxyaabahaas oo dhan waxay isaga mid yihiin waa yani anti-inflammatory properties leeyahay anti-inflammatory inflammation ka marka la sheego hadii hadda la dhaho wax kasto xanuun kasto wuxuu ka bilowdaa inflammation ama waa yani rootkiisa waa inflammation hadda ka hor waa ka hadalnay waa Soomaalida caabuq ayaa la yiraahdaa caabuq sidaan ku maqlay Soomaaliga caabuq ayaa la yiraahdaa waa intuusan infection ka gaarin heerka uu marayo xanuunka hadii wax laga qaban waayo marka infection uu isku bedelaa iyo xanuuna chronic la dhaho marka saas darteed waxaan maaragtay rabaa yani ina la fahmo inflammation waxa ugu mushkilad ugu weyn maanta adduunka haysato yani waa jirka oo maaragtay dab ku kacsan yahay oo kale
waxa lagu yaraa calaamaadkooda waa taa hadda ka hor ka hadalnay waxa lagu gartaa waa bararka waa kulaylka iyo xanuunka intaas markay isku darsanto macnaheedu waxa waa inflammation ajiro ama jirka gudihiisa ahaato ama jirka banaankiisa ahaato marka inflammation kan adduunka dhan uu hadda maanta dib ku haya xanuun kasto ama kansar ha noqdo ama madax xanuun ha noqdo waa inflammation yani madax xanuunka dadka waxa xanuunka horta sidiisa raxmad iyo faa'iido ku jirto yani haddaa fiirisid inuu qofka xanuunsado raxmad ilaahay ku jirto sababtoo xanuunka macnihiisa waa alarm clock oo kale yani wuxuu ku sheegaa jirkaaga waxba ka qaldan waxba ku soo kordhay hadduu xanuun jiri lahayn qof walba asagoo taagan uu dhiman lahaa yani dadka u dhimanaya xanuunada qofka asagoo taagan uu xanuunka u dhiman lahaa laakiin ilaahay mahadiisa waxa kamid ah ilaahay raxmadiisa waxa kamid ah ku mahadsan yahay subxaanahu wa ta'ala in uu xanuun jiro oo xanuun uu dareemo qofka inuu qofka xanuun dareemo markii uu ay ku dhacdo wax uu jirkiisa ku soo kordho marka xanuunkaas marka hadda xanuunada maxaa maaragtay maxaa cause u ah xanuunada dhan waxaa lagu leeyahay waa inflammation marka meeshii inflammation markuu ku bilowdo xanuun ayay keenaysaa way bararaysaa way kululaanaysaa dabcan qandhada la arkayo qandhada waa waxyaabaha signka inflammationka qandhada qof markay qabato macnaheedu jirkiisa meel kamid ah ayaa inflammation ka jira marka jirka wuxuu tusayaa waxbaa jira yani wax ka qaba camal marka qandhada faa'iidada yani leedahay waa calaamad iyadana xanuunka iyo qandhada waa calaamad ku tusaysa inuu jirka xanuun u jiro hadduu qofka isaga waxaasoo dhan ku dhici lahaan isagoo xanuunsan wuxuu u dhiman lahaa isagoo maaragtay iska socdo ama iska soo dhici lahaa yani maalinkii ay naftiisa dhacayso marka yani waxaa arkaysaa jirka ilaahay subxaana wa tacaala waa wax ku program garaysan inuu isaga maaragtay ismaamulo walilaahi alxamd marka hadda qofku markuu qandhada qabato markiiba waxaa waaye marna waxaa arkaysa isagoo dhididaayo mar isagoo xamoonaya waxyaabahaas yani jirka ilaahay wuxuu u sameeyey xataa maaragtay wuxuu kula dagaalo qandhada yani dhididkaas arkaysid macnihiisa waxa waaye waa dhididkii wuxuu rabaa inuu jirkii kululaaday uu biyo ku rusheeyo jirkii ayaa biyo ku rusheynaya yani dhididkaas arkaysid waa biyo lagu rusheynayo jirkii macnaheedu jirka wuu gubanaya halkaas waxaan ka soo wadaa inflammationka waa dab jirka ku kacsan ilaahay naga nabadgeliyo waa dab jirka ku kacsan oo u baahan in laga damiyo marka dabcan dhididka waxyaabaha uu maaragtay qofka qandhada uu isku arkaayo waa inay maaragtay qandhadii يعني كلالك دميناي لكن طبعا wuxuu u baahan yahay qofka inuu fiiriyo mushkiladda meesha ka imaanayso wax ka qabto dabcan daawo dabiici ah inuu isticmaalo inuu maaragtay wax ka bedelo xaaladda uu ku jiro noloshiisa waxa lifestyle ka yiraahdo ayaa mushkilo dhan ka imaatay adduunka waayadan dambe dadkii waxay iska sameysteen nolol oo iyaga maaragtay jeebkooda ay kala soo bixeen oo loo qurxiyay tiya marka waxay keentay inay dadkii iska qaataan noloshiina waxaa ka timid dhibaatooyin badan marka daas waaye waxaa lagu leeyahay cuntooyinka GMO-ga dhan inflammation ay keenaan cunto GMO dhan inflammation waa maxay GMO qofkii u baahday inuu rabo inuu ogaado GMO oo maanta cuntada cunayna 95% ah waa GMO qofkii rabo inuu ogaado barnaamij weyn aan ka sameeyay 7 qaybood ah waa YouTube ku jira channelkayga uu ka helaa insha Allah marka maadaama uu yahay inflammationka waxyaabaha ugu daran oo qofka ku dhici karo oo xanuunada keeno marka waa meeshaas waxaan ka soo wadaa inflammationka waxaa daawo u ah malmalka iyo luubaanta ayaa daawo u ah marka halkaas meeshaas wax isaga xirmayaan waxaan ka soo wada waxay ahayd inflammation kan adduunka uu ku wareersan yahay oo wax walba la leeyahay waa anti-inflammatory waxaasoo dhan micnaheedu waxa waaye waa dadkii
qof walba wuxuu ku dadaalayaa inuu helo xal in loo helo inflammationka maanta adduunka ku batay ayaa xal loo raadinayaa marka saas darteed yacni adduunka oo dhan waxaa lagu tartamayaa inflammationka in xal loo helo marka inflammationkaas ayaa marka waxaan rabnaa inaan ogaano sida uu muhiim ugu yahay malmalka iyo lubaanta maanta malmalkaan ka hadlaynaa marka malmalka marka waxaan caabuqa waxaan dhahnay waa mushkiladda ugu weyn oo dadka maanta hadda haysato marka haddii uu caabuq jiro ama inflammation jiro micnaheeda xanuun ayaa jira marka qofka ama ha ahaado early stage yacni waqti hore oo xanuunka markuu bilaabanayo ama ha ahaato waqti oo dambe oo masalan dadka inta badan especially kansarka waxay ogaadaan waqti dambe yacni inta hore lagama arko jirka wuu iska socdaa qofka ilaa uu qofka isbaaro oo markaa isagoo isbitaal intuu iska tago arko jirkiisa inay wax ku jiraan ma ahan nabarkaas si tartiib wuxuu ugu yimaadaa micnaha jirka inta badan wuu isdifaacayaa muddada ugu badan jirka wuu isdifaaci karo wuu isdifaacayaa laakiin waqti waxaa la gaarayaa jirka wuu isdifaaci kari waayo waqtigaas markii maalinkii jirka laga adkaado oo xanuunkii uu bilowdo mushkiladda kansarka markaasuu fidaa markuu fido marka jirkii uu arko wax uu ku difaaci karna inuu haynin meeshaas ayaa marka hal mar ayuu meel xanuun ka bilaabanaya marka xanuunka uu bilowdana waa mar uu bilaabayo inuu si degdega ugu fido jirka qaybihiisa kale ilaahay naga badbaadiyo laakiin waxaa loo baahan yahay qofka yacni sida markaa GMO-ga aan aad uga hadlay inuu qofka caafimaadkiisa ka warqabo intuuna xanuunada imaanin waxaana ugu horeysa inuu cuntada cunayo inuu fiiriyo cuntada cunayo qofka inuu ka warqabo taas ayaa cuntada waxay u keeni kartaa caafimaad ama xanuun yacni ilaahay alxamdulillah system ayuu dejiyay adduunka qofkii raaco waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadka isaga haya waa asbaabta caafimaadka hadduu qofka cuntadiisa uu ka dadaalo nadaafadeeda iyo waxa cuntadiisa ku jira inuu ogaado marka haddii uu xanuunkii yimaado marka maanta wax alla wixii daawo adduunka ugu badan oo maanta lasoo saaro ugu badan
waa daawada inflammationka la dagaalamayso adduunka oo dhan lacagaha ugu badan waxaa laga bixiyaa markay noqoto daawada inflammationka la dagaalanto ama infectionka la dagaalanto yani inflammation markaan dhahayo haddii uu stage kalabaad u gudbo micnaheeda waa infection waxaan ka hadlayno dhan waa infection yani haddii uu infection yimaado xanuunada infectionka maxaa maaragtay lagu daaweeyaa waa adduunka hadda waxa tartan loogu jiro oo uu qof walba rabo inuu soo saaro daawadii infectionka ama inflammationka tartankaas marka isagoo jiro maanta adduunkeen waddankeena ilaahay muxuu siiyey adduunka oo dhan oo tartankaas lagu tartamayo inuu qof walba soo saaro dabcan haddii laga dhigay daawooyinkii waxa warshadaysan oo maaragtay qof walba uu isaga magaciisa kusoo qoranayo patent ayaa la dhahaa systemkaas mar hadduu qofka magaciisa ku qorto anaa waxaan soo sameeyey cid kale kama sheegan karto laakiin markuu ilaahay subxaana wa tacaala dhulka dabiiciga uu nooga dhigay daawadayni iyo cuntadayni cid nagu haysato ma jirto marka haddii uu qofka xanuun uu yimaado waxaa fiican sida ugu sahlan inuu ku raadiyo caafimaadka oo ah shalayba wuxuu ka bilowday xanuunadan chemical jirka ka buuxsamay maanta haddana hadduu chemical sii raadiyo dabcan chemicalkii waxay ku noqonayaan yacni mid kale oo xanuun kaloo ziyaado ah dadka waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka ii imaado kansarka yacni aan kala taliyo mushkiladaha ugu waaweyn oo ku dhacdo waxa waaye ma aaminayaan daawadan يعني dadka markay soo quustaan horta ii imaadaan dadka Hindi markay lacagta kaga soo dhamaato Turkiga lacagta kaga soo dhamaato lugooyo dhibaato dadka inta badan ii imaad kansarka tal inaan la taliyo xabkahanayto aan u sharaxo oo daawadan ay ka faa'iideystaan yani aan kula talinayo waxay ii imaadaan markay lacagta ka soo dhamaatay ay soo wareereen oo soo dhibaatoodeen qofkii markuu xanuunkii soo dilooday ayay inta badan ii imaadaan taasna aad baan uga xumahay sababtoo ah qofka markuu fursad haysto stage 1 stage 2 wali wuu fiican yahay laakiin stage 4 markuu qofka gaaro halkan yani westernka waxaa la sameeyaa qofka meel baa la geeyaa guryo oo khaas ah jirto oo qofka uu ku sugay dhimashada guryahaasa la geeyaa marka qofka intuu stage 4 sugaayo ma fiican inuu ka dadaalo wixii intaan heerkaasi imaan awalan inuu horta raadiyo war ma jiraa wax ka duwan waxan hada mushkiladaha ugu waaweyn arkay yani wax ka duwan chemicalkan ma jiraan ilaa anaga waligeen Afrika oo dhan dowladda islaamka meel walba waxa looga dhaqmaa China-daas ay maanta waxa dabiiciga ma aragtay la isticmaalaa laakiin dadkeeni waxa malaysaa inay daawada aamineen oo almost la caawidi rabo daawada chemicalka ilaahina daaweyn dabiiciga nasiib adduunka maanta hadda dad badan fahmay oo Soomaaliya container laga daldalanayo habeen iyo maalin containers laga daldalanayo macnaheedu waa maxay xabkahan laan halkaas waxa ka daawo sahlan oo raqiis in la helo ayaa la arkay marka hadda dadkeeni waxay sameeyaan qof xanuun lagu sheegaya nooc raba ha ahaado waxay kadib Hindiya la aaday Turkiga boosaska laga daaya wixii qofka reerka lacag lahaayna la isku aruurinaya waxa la wixii qaraabada lacagti qofkii la siinaayo waxa waaye not only in lacagti ka soo dhumayso lacagti kaliya kama soo dhumin caafimaadkiisina waa ka sii daray marka saacadan hadda la joogo ani waxaan hayaa dad badan oo Hindiya markay tageen lagu soo lugooyay oo dhibaato ka soo raacday hadda iyaga nool soo noqdeen dadkii iyaga nool ku soo noqday waxa ay sheekeynay saacada hadda la joogo hadda Turkiga frontay Turkiga qof walba Turkiga loo qaado la ilaaha illa allah dadka maxay u diidan yihiin inay wax isweydiiyaan maxaa loo diiday aqliga maxaa loo xiray bani aadamka ilaahay si war qofkii kaaga horeeyay Turkiga muxuu kala soo kulmay dadkii ka horeeyay Turkiga aad maxay kala soo kulmeen maanta waxa loo baahan yahay barnaamij dhan in la diyaariyo Turkiga dadka waxa lagu sameeyay shalay Hindiya ee dhibaatada dadka ka soo gaartay maanta hadda Turkiga taagan tahay waxa iyaan dhaweeyay marka message la soo diray hooyo qaylinaysa oo leh hal habeen baa waxaan soo dugnay 3 qof dadkii waa lagu tababaranaya waxa lagu tababaranaya awalan daawo ma dhahay Turkiga dhan laakiin wax alla wixii daawooyinkan ka shaqeynay oo dhan lacaga la wada fiirinaya marka dadkii Soomaalidu waxay noqdeen dad lagu tababaranayo ama ha noqoto daawo lagu tijaabinayo ama amaliyado iyo qalab cusub lagu tijaabinayo ilaan wax daba socdo iyo dawlad daba socoto iyo cid ay u dacwoon karaan iyo cid u dacwoonaysa iyo ma jirto hadda maanta westernka hadii qof waxa uu kugu sameeyay
ودعوين كرتا dadka dacwadaas ay ka cabsanayaan hadhow lacag badan la weydiinayo laakiin Soomaaliya ay dacweynayaan ilaa dawlad maanta oo dadka difaaci karta ma jirto ilaahay noo keeno haddana muxuu ahayd ii sheeg dadkii lacagahoodii waxaan ka bixinayaan wax walba waxa ka daran qofkii lacagtii bixiyay haddana inay maaragtay mushkiladii iska raaf inay la xaliyo ka sii badatay المهم سليد أنا ربع إن كهذلو سليد كلية ما أها برنامج كودن وحكو سابسيها ململ برنامج كململ هذا قيبة سليد وقيبها أوسهل ندتك إني قاعدن كران أما هالنقطة جيرك بنانكيس أما جيرك جوديسة وحنا دن معناها مركز كوسو أرورية أنا كهذا اللي كرو كيميكال كوجرو أو طبيعي قال جه لي يصير ما عرفت قفك جيركيس أول شقيناين يعني وحلقوا أوجه دواوين كطبيعية وحلقوا يقانا كيميكالز نوعها أي معرفتي ليهين أو بن آدم أي سمين كن أو إله كلي أو سمين مركا ما دام أوجرو كيميكال أو طبيعية أو أنت بدن إنفلاميشن كلا دجالما قار وحجر عرف يعني عرفاية أو عرفت در بدن عرفت هذا بدنتها إلهي قدك داو أو قد جاي جست وحكم إذا حبكان تربينز وحل ده جرو تربينز وحجرو وحل ده وكيميكال كوجرو وحجرو وحل ده ألفا بنين وحليهن وحصل رقف بارك إن شاء الله كوسو قرآن ألفا بنين وحجرو بيتا بنين وحيابها سوا وحيابها هذا بين آدم كهديك عنده وتقص مين كران وهو ريسو صار لها لكن وحن أسمين كريم لأنه الله كلي آية صار وحنك إله كلي يقان مركا هدي إله لقى عرري طبعا إله توفيق لسه حيكون جرت قفكي اسكو حرا أو إله سبحانه وتعالى ويديست توفيق إنه ما عرفت هلو جدك سحلة مركا ضدك تركيا لو هذه هي المشكلة دي هذا ما أنتو حيتاج أنت هي يعني إن حتى لو جيدين ورقفك هذيك توانكي قف كهوري أو تركي آدم محيك لسه كل من حتى دكتين إن إيجو حسوا شيئان لباتها كيسة إسكو مش شيئان ولباتها تركي إيجو سو قبستي ددي هو أوجاد ورنبتانا جرت حتى إسبتال هبل يان لا تجين دكتور هبل يان لو تجين دكتور هبل يان لو تجين إسكا إلالية نبكاس يعني حتى إنفورميشن إسكو قد بي أنت سيت حتى ملا سمين وين دتك تركيا كل ما يعني تركيا وودن ولالكين أواي ولالهن واي لكن خير إيه شرب واسكو دحجرا وأنا قفك مركا تركيا كلية معناها لما أها مركا جنادي أو محوها هاي عافمات كما أها مركا وحلو بعهاي هاي إن السويدية شالت هندي هاد ما أنت تركيا تاجن تعبير محا صباحا وحمقلا محوها هاي ساوث كوريا هذا الله سعدا يعني سبحان الله العظيم أنت إله إن لقى عرر مركا محا إله لقى عررايا أنت لا عررا مركا قد بيس أنت أرتكال تجايا marka waxa loo baahan yahay ilaahay in loo soo noqdo marka ugu horeyso waxaan ilaahay dhulkeena naga siiyay waa waxa maanta tooshka lagu wada raadinayo wali haday maanta fahansan yihiin dadka adduunka joogo mar hore aan maaragtay dagaalada ugu weyn oo nal ku soo qaado marka ugu horeyso waxay ahaydba dhulka inta nal ka qaato wixii ku jira dhan la qaadan laakiin ilaahay ana ilaalina alxamdulillah laakiin dadkii oo dhan ma wada fahansana dadkii hore si fiican u fahansan Chinese waa fahansan yihiin Hindida waa fahansan yihiin habeen iyo maalin wixii waa daldalnaa waxyar $2 $5 looga aruursanayo wadankeeni markaas waxa lagu iibinayo ilaahay aan ku dhaartay $1,000 waa arkay malmal hal kiilo $1,000 $1,100 iyo wax la jiro waa arkay ilaahay aan ku dhaartay oo internetka lagu gaday $1,000 iyo wax la jiro ayaa malmalka kiilo laga bixinaya war xataa dadka business ka rabo maxay tan uga faa'iideysan laayihiin dadka business ka raadinaya maxay uga faa'iideysan laayihiin waxaan adduunka inay intee iib geeyaan ilaa Soomaalida meel ay maanta tagin mashriq iyo maqrib way tageen meel way tageen waa xabkeen wadankeena laga aruursanayo cheap iyadoo markaas online kan waxa lagu kala gadayaa yani wax aad u maaragtay qaali u ah average ka yani isku celceliska halka kiilo oo malmalka iyo beeyada maadaama aniga business kan iyo daawadan aan ku dhex jiro halka kiilo waxa adduunka lagu kala gadayaa international trade lagu kala gadayaa waa $250 ayaa lagu kala gadayaa halkii kiilo Soomaaliya waxa loo qaataa $5 wax ka yar looga qaadanaya marka yani xataa qofkii business ku fikira waxaanayto waxa waaye wadankeeni daawadii taalay dad baa raqiis ku qaadanaya annagina waxaan bixinaynaa lacagaha ugu badan
daawo wada baaba ah oo dadkii lagu tijaabinayo oo chemical ah oo bini'aadan gacantiis ku sameeyay wallahi daawada ugu fiican oo maanta bini'aadanka soo saaray waxay leedahay markay ugu yartahay kama yaro 10 dangerous and disease ama muxuu ahayd xanuunay wadataa 10 markay ugu yartahay hadaa beenta iska ilaaliyo waa daawada ugu sareysa maanta German dadku waxay aaminsan German haddii Soomaaliya German visa u helaan mar hore isku wada shubilaan maxaase xanuunkan badina dadka keenay xanuunka dadka cuntada saxda ah loo noqdo walaalayaal aniga GMO wax la yiraahdo micnaheedu waxa soo dhan waa ka soo hadlay dhageysta cidi kale ka dhageysanaysan ka dhageysta cuntada badala inta aanan Hindiya iyo muxuu ahayd dhul ilaahay ogyahay dadkii lagu qalqalanayo eber looga siiyay Turkiga intaan la aadin cuntada ilmaha yararka ha laga badbaadiyo hadduu qofka weyn isdhiibay kuwa yararka ha laga bedelo cuntada dabiiciga ah cuntada dabiiciga jirto wadankeena hadda hal waxa jirta ayaan dhaxdaas sida gabadha saaxiibna ay bartay moordi soo waxa laga cunaa saadka moordidaas waxa la yiri marka dadka warwareysta si fiican wareysto waxa la yiri waxa la siin jiray waagii hore markuu qofka xanuunsado micnaheedu waa full of nutrition waxaan u maleynaa bahashaas ina dhulkaanito si ka magac kale ku bartay markaan isku fiiriyay waa isku mid quinoa English waxa lagu dhahaa quinoa waa highest protein يعني waxa ku jira ilaahay kaliya yaqaano waxaas dhulkeena ka baxan laakiin wallahi waxa arkay kiilada $2 iyo xawaal gaday waa qaali hadaa fiirsid Soomaali u fiida u fiirsid waxyaabaha kale laakiin dhulkan maxaa la gadayaa kiino halkii kiilo waxaa la gadayaa $35 la gadayaa يعني waxyaabaha adduunka xataa aan beec geen karno waa hadii adduunka beeciisa nala furo Soomaalida insha Allah laakiin dadkii maxay uga faa'iideysan laayihiin maxaa loo cuni laayahay cuntada dabiiciga wadanka khudaar iyo wax walba ka soo baxo waxa ka soo baxo maaragtay ii sheeg habal lagu dar chemical aan wadanka waa ogahay in wax lagu beerayn oo chemical waa lagu beeraa oo GMO gas waa jira laakiin wuxuu ka fiican yahay GMO ga maanta adduunka oo dhulkii macdanta ka dhamaatay laakiin Soomaaliya dhulkeeda wali caafimaad ku jiro marka ugu horeyso waxa loo baahan yahay oo aad loogu baahan yahay in wadankeena organic lagu soo celiyo Hindiya way ku dadaashay maanta Kenya nagu dhagan organic waa laga sameeyay maxaa dadkeen hurdada oo ka calahay war xanuunka intuusan iimaan haliska difaaco waxa la isaga difaaci karaa dhakhtarkii hadda ka hor aan ka hadlay wuxuu yiri qadaa'i dawaa'i waa nin Falastiin oo dhakhtar ah oo aashaabta iyo nutritionka isagana ku jira shicaarkiisa waa maxay ama halhayskiisa wuxuu yiri qadaa'i dawaa'i cuntadeeda ayaa daawadeeda cuntada ayaa daawo ah subhanallahi alazim war dadka laga badbaadiyay dhibaatada haysato cuntada lacagtoodii way dhamaatay caafimaadkoodii meeqa qof yani ku dhimanaysa Turkiga maalis weydiyo Turki kali anima ataaga hadda waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay u arkaan in aan Turkiga waa dawladaha ugu fiican oo maanta Soomaaliya muxuu ahaay tasaaciday laakiin shar ayaa ka buuxdo dad badan oo maanta adduun ilaahina aan aqoonin oo lacag caabudaya jiro dadkaasi Soomaalida gacanta u galeen waa hadii la dhihi lahaa hal dhakhtar oo fiican jiro ومن مسلم إلهي كعب سنة نينكا صلاتك وحداني أهلت قبل صلاتك وحداني أهلت لكن وحال سكوة شوي ماشي إيضا لقاها وذا حرين حتى هل صار فيسبوك دتك لقلت لنا هل صار إلا دتك فيسبوك إيه سوشيال ميديا الوجرة أنت محو هاي تدت قاقاون إيه وحول بحياسي حصل صادرة دتك هلاش هلا سماية واتساب جروب هلا سماية محو هاي تميلا لقلت لي وفيسبوك هلا سماية انستغرام هلا سماية تويتر هلا سماية ودقاتير كاس أني ودب إسوا جارسي إسكي إلالية warkan iska ilaaliya warsan hatta dadkii oo wax tarjumay ayaa maanta waxa la yiri businesska ku jiro oo qaarkood Allahu a'lam wixii ka jiro dadka wax u tarjumay luqadda Turkiga ayaa hatta business ku jiro Indiana waa maqleen dadkoodii ayaa hatta baabiinay marka waa raba inaan sii wado laakiin waxa u maleynaa inuu qayb labaad yeelan doono maxaa la dhahaa saliid malmalka laakiin يعني وان كحومها دباتة ودن كان هيستو دتكين ودن وحي ودن كجوي وحي ودن كمقن دباتوين وين هيستو مركا إلهي هلو نقضو استغفارت هلا بديو خيانة إيا بنت إيا إسنعيبك إيا دبك إيا محو هايت إيشيك إسلويني ذا وحاسيت هدي لجوجي إلهي وحيابها وقفك أكو أقبل واي توبديس إلهي هلو ودن نقضو ذنوبتها لسكا يراي حرامتها لسكا إلالي قف حران عني دعاديس ما بل أقبله قف حرام عني إلهي كم ممنوع إن دعاديس أقبله وكم ممنوع عنته حرام تهلسك إلالي مركا إن شاء الله هذا كده بدري كرئينير كل يوم الملك وحن كده لا واكده وهدي لي root cause of
every disease waa inflammation wax walbo salka waxay ku hayaan caabuq hadii la yiri malmalkiina uu yahay anti inflammation caabuq oo la dagaalamayo waxba kale looma baahna waxyaabaha ugu horeey loo baahan yahay jirka in toxinka laga bixiyo ama qarasta laga bixiyo dadka inta badan caloosha taagan wixii caloosha lagu nadiifin lahaa anaga waa hayna waxyaabaha nutritionka suuqa khudaarta qofka khudaartaas buuxdo oo dadka hadaa tiraahdo Soomaalida khudaar ma cuntaa xukul aan salaatada cuna aan salaatada maxaa khudaar miya waa fraction of 1% cuntada waxa jiro kun marka loo qaybiyo marka khudaartu way badan tahay fruitsku wuu badan yahay waxa siita jirka waxay ka dhaqaan way nadiifiyaan marka xabkaha insha Allah one by one hal oga hadli doonaa laakiin hadda insha Allah taala waxaan ku dari doonaa aniga si kooban u soo sameeynayo malmalka bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah qaybtan waa qaybtii labaad ama isku xirmaysa insha Allah malmalka iyo faa'iidadiisa marka si gaar ah looga hadlo malmalka iyo faa'iidadiisa insha Allah waxay noqonaysaa يعني هدي لفيري ململك إلهي سبحانه وتعالى وحياه بدن أي ونجسيه محيابه أروي يعني محاكم ذا قمنك بررك نبرها جرك كصباحة هرجبك فلوجة يعني هرجبك آتك وعلص أو جرك ودن وذجلة قفعة دونت markay cunayso qofka ama doonta qofka hargab ku soo socdo oo kale doon xanuunka xanuunada oo dhan yani xanuun markuu way noqoto pain yani waxa xanuunka la yiraahdo iridka dhiiga ama infection ka qaaday ayaa maaragtay intaas waxa dheer yani malmalka inuu yahay waxa soo dhan waa waxay isaga mid yihiin xanuunadaas oo dhan waxay isaga mid yihiin waa inflammationka ama waxa keeno waxa infectionka ay intaas xanuun inta waxa xanuunadaas soo sheegnay ay isaga mid yihiin macnaheedu waxaan fahanay inuu malmalka yahay wax la dagaalama infectionka ama caabuqa marka muxuu qofka daawo kale uga baahan yahay mar haduu tan haysto haduu malmal haysto qofka wuxuu daawo kale u doonto aniga ma fahmin yani hadii qofka waxa way inta yani wixii ka warqabin waa loo cudur daaray laakiin wixii markuu ka warqabo isagoo ka warqabo inuu malmalka lahayn wax side effect isagoo lahayn dabcan way jirtaa inuu qofka malmalka hadii uu dooskiisa uu ka qaldan yahay uu dib keeni karo taas waa waxyaabaha anaga aan aad uga shaqeynaynay oo dhowrkii sano la soo dhaafay alxamdulillah aan u helnay doos fiican oo marka dadkii lagu daaweyn karo insha Allah taala marka taas iyadana waa wax sahlan oo qofkii hadalkan dhageysto yani si fudud buu noola soo xiriiri kara insha Allah yani macnaheedu waxa fiican markuu qofka soo gaaro wixii faa'iido ah oo marka malmalka aad buu raqiis u yahay wadankeenu ka buuxaa qof walba meesha joogo waa loo keeni karaa qasamaha anaga kaliya ma aha adduunka dadka geeya waxa dad qof walba xataa Soomaali ka soo dhoofayo waa qofkiisa uu u dirsan karaa hadduu qofka meesha joogo marka yani malmalka waa daawo xoog leh waxaan rabaa inaan dadka ka dhaadhacsiyo waa intaas malmalka iyo luubaanta yani xabkaha oo dhan insha Allah ka wada hadli doona laakiin hadda maanta xoog waxaan saaraynaa malmalka waxyaabahaas oo dhan isagoo u fiican inuu qofka daawo meel kale ka doonto waa waxyaabaha maaragtay keeni karo inuu qofka uu ilaahay nimcadiisa ugu shukrin waayo yani alxamdulillah haduu ilaahay nasiyo daawadan dabiiciga ah wax dhib lahayn hatta haduu qofka uu la yiraahdo sheegan waa daawo oo qof maaragtay hatta uu ka maqlo hadii dooska ka walwalo wax yar lagu bilaabaa la iskama badiyo wax yar lagu bilaabaa hadda malmal kaliya ma aha dhirtu way badan tahay daawada marka yaan laga cabsanin awal nafta hal mar ay dhacaysa waxa ka daran qofka cunay daawo ay ku qoran tahay intaano side effect ayaa kaaga iman karo marka qofka inuu overdose ka walwalo yani oo naftan goortay bixis ilaahay kaliya hayo laakiin qofka overdose-ka daawada dabiiciga ka walwalayo hatta iyadoo yar u qaadan kara laakiin soo kama darna qofka og daawada uu qaadanayo in loogu soo qoray ee ugu qoran tahay meesha waxaana xanuun kale ku keeni kartaa
ama sidaan haddaa isku aragto emergency ka tag ay ku qoran tahay marka yacni waa la fahmi karaa marka malmalka intaasoo iyo wax ka badan ayuu daawo u yahay kansarkii waxaa la yidhi alxamdulilah yani dad badan baa research kusoo saaray maanta ani keliya ma aha qofka ka hadlaya inuu kansarka daawo u yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin research badanaa laga soo saaray insha allahu tacaala websitekeena waa soo gelin doonaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan waa wax maaragtay laisla yaqaano marka kansarkii hadduu daawo u yahay caabuqyada ugu waaweyn waa dadka ku dhici kara waa kansarka marka waxaas waxyaabo badan marka caafimaad qofka ka heli karaa waxaa kaloo jirto yani researchga laga sameeyo aad buu u badan yahay aad ayuu u badan yahay malmalka qofkii English ku fahmaya yani insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka diyaariyo book xabkaha Soomaaliya xabkeeda inaan book ka diyaariyo bookgaas maaragtay dadka af Soomaali ugu bedelo insha Allah wax la fahmi karo mar haddii luqadda English yani waxaan ka tarjumay hadduu yahay English way fududahay in af Soomaali lagu fahmo insha Allah waxa kale waxyaabaha kale uu malmalka faa'iidadiisa waxaa kamid ah waxa la yiraahdaa waa powerful antioxidant marka meelo badan waa ku arkaysaa antioxidant muxuu yahay antioxidant micnaha antioxidantiga waxa waa oxidantigu uu ka soo horjeeda ama wuxuu ka difaacaya oxidation waxa la dhaho oxidation micnaheeda waxa ugu soo dhaw qof kaga dhaadhacsiin karo oxidation kan waa مثلا birta markay biyo intuu ku dhaco ama wasaqoodo ee meel iska taalo way daxalaysataa birta markay daxalaysanayso يعني oxidation process ay ku jirtaa birta markay mirror uu ku dhaco oo ay mirrorayso waxa waaye waa oxidation process ayay ku jirtaa micnaheeda hawada oxygen markay ku dhacdo way madoobaanaysaa way sii xumaanaysaa marka haddii jirka bini'aadamka dhexdiisa markii xubnihii gudaha ku jira ee oxidation bilaabaan waa markuu xanuunka imaanaya waxaa loo baahan yahay ina oxidantska waxyaabaha oo jirka keenayo oo daxalaysiga ku sameeynaayo ama mirrorka ku sameeynaayo organiska waa ina jirka laga nadiifiyo marka malmalka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha antioxidantiga oo ka saara yani jirka ka difaaca inuu daxaloobo oo kale مثلا dadku sida ugu fudud ay ku fahmi karaan oxidationka waa maxay appalka tufaaxa marka la kala gooyo hal daqiiqad banaanka dhig hal daqiiqad haduu banaanka yaalo markiiba uu isbedelayo colorkiisa taas waa oxidationka marka taas haduu si yaalo uu xumaanaya bacteria galayso marka waxaan waxa waaye waxyaabahaas ka hortaga malmalka alxamdulillah haduu jirana qofku markaas ay tijaawo amal u noqono insha Allah waxa kaloo jirta iyadana malmalka inuu yahay antibacteria oo wax alla wixii bacteria ah ayuu dilaa jirkaaga haduu bacteria ku jirto oo ah waxyaabaha xanuunada keena uu ka dilaya hada yani hatta ka hortag hada u qaadato malmalka hadii uu qofka uu ka cabsanayo inuu overdose ku noqdaan mar alla marka xanuunka isku aragtid hal xabo yar ku shuba ku rida hal koob biyo ah biyahaas ka cab xoogaa markuu ku milmo ama habeenkii ku dhig biyaha subaxi cab habeenkii hal koob cab waxa arkaysaa maalinka ku xigta alxamdulillah way ka dhamaadeen marka waa antioxidant waa antibacteria antifungal waxa hadda ka hor ku sheegnay markaan ka hadlaayay lubaanta fungalka waa waxyaabaha mesela meesha markii oo bacteriyada waxaas markay ku badato wax maaragtay ii sheeg boor yar ayaa maaragtay meeshaas soo galaya marka boorkaas waxa la yiraahdaa fungal boorkaas oo germska iyo bacteriyada isu tagay fungal ayaa la yiraahdaa marka af Soomaaliga wali ma ku fahmin waxa la dhahaa fungal marka waa antifungal waxa saytan uu ka hortaga ama uu la dagaalamaa wuxuu kale yahay malmalka anti-tumoral hadda waxaan ka hadlaynay maaragtay kansarkii ayuu ka hortagaya ama uu daawo u yahay walilaahi alxamd malmalka especially marka laga soo tago frankincense ama lubaanta marka laga soo tago malmalka studieska qaarkood waxaan ka akhriyay in uu yani growthka ama cellka markuu kansarka uu weynaanayo yani uu weynaanayo dhihna markuu badanayo ayuu istaajiyaa yani badnaantaas uu si badanayo ayuu istaajinaya marka mar haduu growthkiisi ama badashadiisi uu istaajinayo then marka kalena hoos uu sii dhigaya ilaa uu tumorkii meesha ka baxo so anti-tumor
antiparasitic inuu yahay micnaheedu waxa waaye gooryaanka caloosha galo bahalada caloosha ama jirka galo ayuu iyadana dilaa laano malmalkan aad buu horta qaraar u yahay dadka ka warqabaan xanuunada oo dhan qaraarka ayaa daawo u ah haddii uu yahay edible wax la cuni karo hadduu yahay qaraarka marka sidaas waa dadka sokorta ugu sheegaa sokorta iska ilaaliya especially sokorta oo warshada soo martay iska ilaaliya sokorta markay malab fiican yahay ama timir ma xumo qofka sokor la'aan ma joogi karo energy-ga laga helaya laakiin sokorta oo processed sokorta qofka iska ilaaliyo waxaa kaloo uu yahay antiviral ayuu yahay viral waxa waaye waxyaabaha hadda coronavirus socdo viral oo dhan ayuu wuxuu u yahay anti yani uu la dagaalamaa marka hadda coronavirus dadka waa la kala cararayaa malmalkii waa antibacteria waa antivirus waa antifungal waxaan oo dhan waa research ku wada qoran tahay alxamdulillahi rabbil caalamiin mar haddii aan ognahay intaasoo dhan inuu la dagaalamayo maxaa wax kale laga doonanaya dadaa waxay gacmaha marsadaan waxyaabo oo antiseptic waxaas la dhaho antiseptic waa waxyaabaha jirka markuu dhaawaca gaar lagu nadiifiyo antiseptigaasuu yahay antibacteria waxaasoo dhan iyadoo saliidahan aan haysano in waxyaabo kale bacteriada wixii lagu dili lahaa meelo kale laga doonto waxyaabo chemical ay ku jiraan ma loo baahna marka antiviral wuu yahay oo hadda viralka hadda maanta adduunka la kala cararayo oo coronavirus wuxuu yahay daawo alxamdulilah iyo ka hortag waxaa kale uu yahay layiri waa powerful pain reliever yacni wuxuu maaragtay xanuunka masalan qof qumanka caawa hayo quman hadduu qof hayo qumankaasi xanuun badan ay ku keenayaan muxuu relief u yahay laana qumankii markiiba wixii xanuunka keenaya ayuu dilayaa oo ah jeermiskii iyo bakteeriyadii iyo wixii markaasi qofka oo xanuunka keenay hadduu la dagaalamo dabcan xanuunkii uu soo degaya ma aha xanuunkan hadda aniga aad markaan u baaray ma aha malmalka inuu xanuun pain killer yani markiiba uu beenka uu dilayo sida maaragtay kaniiniyada xanuunka madax xanuunka oo kale laakiin waa process 24 hours u baahan يعني إنه قفك سترتيبة وحي مركا جركيس انتي قلان أو سترتيبة مركا حنوكي وبلابة إنه سودجيو لأنه مركيب حنوك وحي كينا أيو الله دقالة مايا ساسو وحو إيهاي pain reliever too مركا سليدا وحكا لو كوسي في عنتا هاي يعني سيابها لو استعمال إن شاء الله كهد دونا لكن هادو حكا لنا حيابها فإذا كجرو دادكا أو arthritis-ka dadka oo jilbaha iyo kala goyska lafaha dhan xanuunayo ayuu iyadan wuxuu u yahay relief ama treatment hadduu qofka aad u isticmaalayo saliidaas gudaha galaysa jirka 60% gudaha galaan wixii jirka korkiisa la mariyo marka iyadan halka daawo alxamdulillah oo pain reliever noo noqonaya treatment noo noqonaya insha Allah wuxuu leeyahay lagu dhahay yani because of caraftiisa aniga aad baa waxa u dareemaa inuu caraf badan leeyahay dadku waxay dhahaan wuu ii uraya laakiin waa waxyaabaha xoogaa dadka laga dhaadhacsiyay aad buu caraf badan yahay caraftiisa waxa la yiri waxay leedahay yani maskaxda ayay dejisaa balancega qofka hadduu maskaxdiisa maaragtay xoogaa yani out of balance markay tahay uu balancegu soo celinaya emotional iyo stresska iyo waxaasaytan uu ka qaada oo qofka walwalka iyo cabsida iyo waxaas laakiin frankincense luubaanta ayaa uga badan taas inkastoo malmalkana ay ku jirto waxyaabaha kale ee kusii fiican yahay gaaska Soomaaliyeed baadana gaaska sheeganaysa inta badan aniga dadka arko يعني boqolkiiba 50 waxa u maleynaa dadka aan arko gaas inta badan ka sheeganayaan gaaskan waxa cunto xumada iyo GMO-ga cuntada chemicalka ku jirto qofka mar alla markuu bilaabo cunto dabiici inuu qaato gaaska uu ka fiicnaado dabcan gaaska macnaheedu waxa waa fiir ulcerka yani waa nabar caloosha ku dhalanaya nabarkaas markuu cuntadii saliid iyo wax markay taabtaan oo waliba chemical kale ku jiro markiiba meeshii hor iyo xanuun ay keenaysa marka waxyaabahaas nabaradaas ay daawo u yahay alxamdulillah marka malmalka waxa loo isticmaali karaa caraftiisa hadduu qofka guri ku shito waxa waa bahalada ka baxaya neefta ayuu u fiican yahay iyo maaragtay sanbabada u fiican yahay haddii la dhaho korkii waa la marsan karaa saliidahan oo kale haddii kala marka saddexaadna afka waa lagu shuban karaa drops afka inuu qofka 3-5 dhibcood oo kale habeenkii markuu wax iska dareemo hargab iyo waxaas uu qaadan karaa يعني دروبسka noocaasayto ama subaxii iyo habeenkii usla qaadan karaa
haddii uu gacmihiisa mariyo markuu banaanka aadayo jeermiska iyo waxaas oo dhan ay ka dilayaan iyo bakteeriyada iyo viruska waxaas ay ka hortag u yahay alxamdulilah. marka wuu badan yahay haddaan maanta dhan hadlo waxaa laga yaabaa saacad kale inaan kusii darsado mana dhameynayo malmalka faa'iidadiisa. marka intaas waxaa ugu soo koobayaa malmalka micnihiisa oo dhan waa wax la dagaalama infectionka, bakteeriyada, inflammationka, waxyaabaha fungalka la yiraahdo, maxaan ku yiraahdaa tumorka, iyo waxa kaloo la arkay inuu yahay markuu qofka isticmaala. dabcan anaga kareem aan ka sameynayna, waxaan ka sameynaa muxuu ahayd saliida tinta kaliya maaha, saliida kareemkii oo saliid yani oo kareem u dhow oo tinta loogu talagalay, tintana ay ku baxayso, faa'iido badan oo ku jiro. marka saliidii tinta waa oo malmala wahaynaa, oo moisturizer ah yani kareem u dhow. maxaa kale waxa kaloo jiro waxaa haynaa masalan haddii uu qofka wax soo gaaro jirkiisa iyadii oo ah boomaato oo kale, boomaatana waa u haynaa. waxaa kaloo jirto jirka marka la marinayo haddii uu qofka iska isticmaalo saliidan hadda anaga ahayn ama meel kale hadduu ka helo saliidii malmalka waxay ku fiican tahay in jirka markuu qofka sii weynaado uu kala daadanaya ama uu kala fogaanaya. marka taas wuxuu keenaa inuu skinkii uu jilco ama maqaarkii. marka maqaarku isku soo aruuriyaa, waxaa la yiraahdaa waa astringent wax la yiraahdo, uu isku soo aruurinaya. yani qof dhalinyaro kusoo noqonaya ma jiro, laakiin jirkii gabowgu uu xoogaa maaragtay kasoo daahinaya. marka waxyaabahaas oo dhan alxamdulilah. marka malmalka aad buu faa'iidadiisa u badan tahay. insha allah tacaala waxaan isku dayayaa in intaas inaa maaragtay ku ekeeyo biidnillah. malmalka insha allah waxa kale oo kusoo dari doono waxay noqonaysaa saliidaha kale insha allah tacaala. ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu hadalkayga uu tawfiiq uu noqdo oo dadka ay wax ka fahmaan oo wax laga faa'iido. ilaahayna uu dadka ku anfaco. wixii qalad ee aan galayna waxa waay nafteeda iyo shaytaan, wixii aan saxayna ilaahay xaggiisa ka yimaadeen. alxamdulillahi rabbil caalamiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.